واتهي داود الكسو دوادا warbaahinta Nursom News magacaygu waa Cabdi Xasan Ibrahim maanta waxaan joognaa magaalada Bergen waxa halkan maanta ka bilowday shir ay soo qabanqaabiyeen ururka Tusmo maanta way taariikhdu tahay 3 bisha 9 2021 hadaba si aanu u ogaano kulankan waxa uu ku saabsan yahay iyo warbixinta guud waxa aanu hadda la joognaa gudoomiye ku-xigeenka ururka Tusmo Cabdikariin Cali oo naga siin doona warbixin kooban sida uu kulankani ku soo gabagabo doono oo kulankan oo socon doona 3 casho oo maanta uu ka bilowday hadaba waxaan iminka waraysan doonaa Cabdikariin Cali oo inoo sharaxi doona ujeedada kulanka loo soo agaansimay iyo waxa loo wadan leeyahay Cabdikariin ku soo dhawow warbaahinta Nursom mahadsanid walaal shirkan waxa uu soo abaabulnay sida isugu keenay aqoon-yahanada Soomaaliyeed iyo ururada oo firfircoon oo ka shaqeeya arimaha isdhaxgalka xoojinta macnaha macluumaadka caafimaadka iyo waxbarashada iyo ubadka iyo waxyaabo badan macnaha oo ururadan oo frivilliga ay ka shaqeeyaan waxa isu daynayna cazulno inta ugu badan oo awoodsan inaan isku keenno aqoon-yahanadaas iyo organizationada Soomaaliyeed sida horta bilowga ugu horeeyo isbarano talabaad in oo macnaha aqoon la isweydaarsado sababtoo qof walbaba macnaha maxay mowduucyo cayiman oo ka shaqeeya khibrad gooni oo leeyahay oo looga baahan yahay bulshada Soomaaliyeed meelo kala duwan oo Norway ka wada imaadeen marka waxa ugu talagalnay inay kulmaan dadka isbartaan oo kadibna wada tashadaan iyo sidee wax u kala bartaan oo fikrado iyo aqoon u kala qaataan marka waxa cazunay adiga dad gaaray ilaa iyo 50 qofood oo matalo magaalooyin kala duwan oo Norway organization ka shaqeeyo iyo dad wax garad oo aqoon-yahan oo wax tar leh Cabdikariin waa maasan tahay sida aan u jeedno waxa goobtan soo yimi dad aad u badan oo ka yimi gudahan Norway hore ma u qabateen kulan noocan oo kala oo ay dadka tirada leeg aqoonta leh iyo xirfadaha kala duwan ay ka soo qayb galeen oo kulan noocan oo kala isugu yimaadeen maya hore uma qaban mana arkin macnaha kulan la mid ah oo loo qabtay dadka Soomaalida aqoon-yahanada iyo waxgaradka iyo dadka waxtarka leh oo Soomaaliyeed dalka Norway loo qabtay ma jirin hore uma dhicin waa marka ugu horeeya qabanayno oo isku dayayna haduu Ilaahay idmo in macnaha labeenta bulshada Soomaaliyeed ee Norway isu imaatankooda wax wanaagsan oo anfac u leh bulshada Soomaaliyeed ee Norway degan inuu haduu Ilaahay yiraahdo ka soo urtamo Cabdikariin hadad si faahfaahsan loo sharxdo ururka Tusmo waxa laga yaabaa in dad badan aqoon marka adigoo soo koobaya taariikhda la aasaasay iyo waxa uu taagan yahay iyo meesha xafiisyada kala duwan ku leeyahay dabcan Bergen ay joognaa adoo soo koobaya taariikhdaas iyo sida lagu aasaso ururka Tusmo wuxuu aasaasmay 2016 wuxuu ku bilowday macnaha maxad wacyigelinta bulshada Bergen iyo bulshada Bergen magaalada Bergen degan in waxyaabo badan oo kala duwan oo ka caawino sida waxbarashada caruurta macluumaad ama aqoon kororsi ku saabsan siyaabaha shaqada loo raadsado waxyaabaha ugu muhiimsan ka shaqeyno hadda waxa waaye xoojinta macnaha aqoonta dhalinyarada Soomaaliyeed oo halkan ku dhashay ama halkan ku barbaaray oo la xiriirta ka shaqeynta bulshadooda iyo koorsooyin oo bulshada dadka u baahan ka caawinayno arimaha la xiriira shaqada shaqo raadinta interviewga iyo macluumaad ku saabsan suuqa shaqada qaybta saddexaadna waxay khusaysaa caafimaadka iyo familada taasoo ana kala shaqeyno familada xoojinta macnaha aqoonta la xiriirto barbaarinta ubadka wadan ajnabi ah sidaan oo kale marka joogno sababtoo mar walba way ka duwan tahay waxyaabo qaar ay kaga duwan tahay barbaarinta ubadka wadanka ka imaanay sidaa darteeda waxa awood ama waxa aqoon aan leenahay isku dayna ina ku kordhino bulshadeena bayska ugu badan ama shaqada ugu badan waxa uu qabana waa Soomaali laakiin waxa jiro ajnabi kale badan oo ka faa'iideysto shaqada Tusmo sababtoo ah howlwadeenada Tusmo way kala duwan yihiin ayagoo Soomaali ah ay luqado badan ku hadlaan
sidaa darteeda waxaa isku daynaa inaan kordhino waxtarka bulshada ajnabiga guud ahaan laakiin fiiro gaar iyo culays gaarna aan saarno bulshada Soomaaliyeed maadaama anaga dad Soomaali ka dhashanahay cabdikariim waa maasan tahay dabcan halkan waxaa isku yimid labaantii Soomaalida Norway intii badnayd aqoonyahankii qoraayadii dhakhaatiirtii macallimiintii ururada bulshada kuwa localka iyo kuwa arrimaha dibadda ka shaqeeya doonaan marka ma jiraan ajandayaal idinka idin qorshaysan oo aad rajaynaysaan inay beri ka soo baxaan ka sokow in dadku ay isbartaan wada hadlaan dhexdooda ay wax badan iska weydiiyaan noloshan ay ku xayndaaban ee ay waddankan ay ku dhownayeen Norway ها way jirtaa ajandada noogu muhiimsan oo aan ka rajaynayno inuu ka soo baxo shirkan waxa waaye macna hab shaqayn ama report oo ku saabsan weeyaha ugu fiican ama siyaabaha ugu fiican oo looga shaqay karo arrimaha la xiriiro shaqada caafimaadka iyo waxbarashada oo khuseeyo bulshada Soomaaliyeed sida sheegtay macnaha waxa halkan isugu yimid siyaasiyiin Soomaali aqoon-yahano Soomaali dad jaamacadaha wax ka dhigo dad macallimiin iskool dad ka shaqeeyo arrimahan oo shaqada marka waxa rajaynayna waxa way saddexdaas dhinac in nooga soo baxaan aqoon dheeraad ah ku kordhisanayno annaga iyo dadka ka soo qayb galayaashaba markii ina ku kordhisano ama ku sii xoojino hab shaqaynteena ajandada uu noogu muhiimsan meesha ka leenahay waa taas watahay daawadayaal iminkana waxaynu su'aalo kooban weydiin doonaa aqoonyahanka ka soo qayb galay shirkan ay soo qabanqaabiyeen ururka Tusmo ka dhacaya magaalada Bergen iminka waxa dhinaca taan ku soo dhaw adoo magacaaga ku bilaabaya iyo meesha shirkan ka timi iyo anigu magacayga waxa leeyahay Cabdullaahi Maxamed Alison balay yaqana waxaan ka yimid magaalada Kristiansan على سؤال ما سنتهي maxaad ka filaysaa shirkan ay soo qabanqaabiyeen Tusmo ee socon doona 3 waxa ka soo bixi doona iyo sida guud waxyaabaha aan ka sugay horta wax aad u ballaaran rajeynayna maaragtay inay iga qabtiraan baahida anigu aan ka mid ahay dadka Soomaali Norwejiga ay u qabaan inaan aqoon u yeelano aan ogaano kartideena meeshanu daciif ka nahay horumarka ilaa heerkeenu gaarsiisanahay waxa ay nagala rabo inaynu sameeyno saynu horumar u gaarno haddaan meeshii la soo banaan dhigin oo aan la isla qaybsan de ogaan mayno waxaan noqonaynaa dad iska nool aan iska warhayn marka de waan ku faraxsanahay Tusmo programka ay diyaarisay waana ka sugayaa inay iga qabtirto baahida aan qabo waan halkan u imin watahay ay calasow Tusmo inay soo qabanqaabiyeen urur shirkan ka sokow waxa isku yimid labaantii ama aqoonyahankii Soomaaliyeed ee waddanka Norway deganaa intoodii ugu muhiimsanayd isu-imaantigaasi muxuu keeni karaa maxayse iyagu qudhoodu kala faa'iidi karaan horta waxaa farxad weyn noo ah una baahan inaan ku faano in intaasoo qofooda ee aqoon-yahano ah karti leh waddankan xilal kala duwan ka kala hayo ay meel la isugu keeno magaala madaxda Norway la isugu keenay magaalada Bergen horta waa mid aad iyo aad qiimo weyn noogala baahan yahay inaan ku faano markay dad maskaxyo kala duwan isku yimaadaan ta wanaagun ba ka yimaada maxaa yeelay wixii isdheer yihiin bay isu sheegaan waa la iskaashada si halkaasi jawaab uga soo baxdo de Tusmana waxaan aaminsanahay sababta ay programkan u diyaariyeen in ay tahay inay ka soo baxdo natiijo talaabtii koowaad ee loo qaado dadka Soomaali Norwejiga ah ee ku nool waddanka kan saan uga muuqano cadkeenana u qaadano aad iyo aad ma istaacala soo adigoo magacaaga ku bilaabaya xagee kulankan aad uga timi ay soo qabanqaabiyeen ururka Tusmo ee ka dhacaya magaalada Bergen siyaasad waragtaa shirkan dhaci doona maanta bilaabanaya ee 3 soconaya ee laga hadli doono arrimaha isdhexgalka bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan Norway waa maasan tahay magacaygu waa Maxamed Ameed Cabdi waxaan ahay xildhibaan fadhiga golaha deegaanka magaalada Fredrikstad waa ku faraxsanahay inaan kulankan maanta ay qaban qaabisay Tusmo ka soo qayb galo waxaan u arkaa kulan aad iyo aad loo baahnaa muddo sanado ka hor in la qabto waayo bulsho waxaan nahay Soomaaliya weyn ku jira dad cilmi leh dad aqoon dad bulshada wax u bartay marka Tusmo waxay sameysay wax muddo la sugay aan hore loo qaban aad iyo aad aan ugu faraxsanahay aad oo maasan tahay dabcan xilbaane waxa halkan isugu yimid labaantii bulshada Soomaaliyeed ee Norway intii badnayd ururadii bulshada siyaasiyiintii aqoonyahankii dhakhaatiirtii dadkaasi kulmay
saddex casho wada hadli doona halka fadhiyo doona maxaad u malaynaysaa inay kala faa'iido doonaan ka sokow inay isbartaan iyo inay shirka loo qabtay isugu yimaadaan waxaan rajaynayaa inuu ka soo bixi doono wax dan u ah bulshada Soomaalida ee Norway ku dhaqan sidoo kale aan ugu fikirno dhammaanteen mustaqbalkeena iyo ayaheena iyo sidaan bulshadan wadankan la noolnahay ula jaan qaadi lahayn horumar sare ugu sii gaari lahayn caruurteena kuwii dhalaan ay mataqaana u noqon lahaayeen dad oo forbild ah ama tusaale u ah annaka iyo dad kale u ah bulshada kale aad iyo aad loo maasantahay adoo magaca ku bilaabaya waxaan ku weydiin doonaa su'aalihii aanu dadka hore weydiinay say u aragtaa kulanka tusmo ay soo qabqaabiyeen maanta ka dhacaya magaalada Bergen bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Cabdiraxmaan Diiriye waxaan ahay gudoomiyaha golaha islaamka Norway islaamska Norway runtii aniga farxad weyn bay ii tahay gaar ahaan joogista magaalada Bergen maantay tusmana waxay bilowday tilaabo aan horay Soomaalida Norway degan aan looga aqoonin aan isleeyahay waa tilaabo aad u fiican laana kow waxay fursad siisay inay isku imaadaan dadkii Soomaalida ahaa dadka bulshada ugu firfircoona labo wadanka dhan deganaa oo magaalo kasta waa joogaan waa mid saddexaad waxa la fagurayaa oo laga doodi doonaa arrimo fara badan oo bulshada Soomaalida ee Norway degan saameeyay aan isleenahay waa markeedii oo waqtigeedu ay joogtaa maanta laga hadlo aniga magacaygu waa Lul Caraweel Kulmiye laakiin Lul Xasan Kulmiye asalka ahaa kana magac dheer xageen ka imi horta reer Oslaan ahay 28 sano Oslaan deganaa laakiin shirkan hadda Muqdisho kaga imi oo waxa waaye 10 maalmood oo ugu soo talagalay maaragtay inaan karantiilka ku soo qaato kadibna aan shirka imaado ayaan 13 maalmood anigoo sito ayaan wadanka soo galay alxamdulillaah rabbil caalamiin maxaan ka sugayaa shirkan horta marka ugu horeysa waxaan ku faraxsanahay koronadii 2 sano hadda aan ku jirnay dadkii way kala xaniftay qolka dadka ku jira علشان dad badan oo la nooca ayagana way naga maqan yihiin laakiin alxamdulillaah intanba horta tusma qeyr Allah siiyo intanba inay isu keentay waa dad 2 sano aanan arag inaan maaragtay shaashada ka daawado ama telefoonka kala hadlo ma ogiya aanan isa soo ag fariisanin taasina horta waa marka koowaad mid aad u qurux badan midda labaad علشان wadankan waan joognaa qayb baynu ka nahay sawirkuna uu isbedelay sawirka shala ma aha shalay Soomaaliga waxa laga yaabay maaragtay in ayaga laga hadlo oo hadda laakiin ayaga meel walba ka hadlaya oo bulshadii kamid ah taasina waxay marqaati ka noqonaysaa maaragtay tusmo in ay wixii halka meelaha jiray ay isu keento horta horeeto sawirkaas kaliya sawirka uu bixinayo ayaa qiimo aan la soo koobi karin ah waxa kale oo ka soo bixi kara hadda markii dad waxtar leh hal abuur leh hoggaan leh maaragtay saqi ah oo dadkoodii inay wax u qabtaan meel walba ay joogan ku howlan ama naftooda inay horumariyaan qofku markay iyada is horumaraysa xataa dadkay wax u qabatay sababta baahideedii bay dabooshay moogtaa marka isu yimaadaan waxaan malaynayaa wax aad u qurux badan inay ka soo bixi doonaan laakiin su'aashaasi wax u soo noqon doona markii uu dhamaado shirku insha Allah aad u maasantahay magacayga waa Ayaan Cabdi Daahir waxaa ka imaaday Stavanger aad ku faraxsanahay martiqaadkan oo lagu martiqaaday Bergen tusma ururka tusma walaahi maxaa la yiraahdaa waxaan ka filanayaa kulankani ina xiriir Soomaali oo bulshada u shaqeynaysa ina dalada network inaan yeelano oo qofkii maxay ahayd magaalada uu ka imaaday hawsha ka qabanayo wuxuu helayaa yara dhiirigelin markuu arko Soomaali kala duwan oo gobolada kala duwan ka imaadaan marka waxa waaye waa wax aan filanayo in sanadaha soo socda inay Soomaalida ay bataan oo hawshan ay tusmo ay maxay ahayd meeshan inta Soomaali soo keento inay sii wadaan marka dabcan waxa sii maaday aqoonyahankii waxgaradkii dadkii u dhaqaaqay ururada bulshada iyaga qudhooda maxay kala faa'iidi karaan kulanka ay isku yimaadeen saddexda soconaya qof walba wuxuu ka imaaday ururo kala duwan dabcan shaqooyinka ay u qabtaan bulshada way kala duwan yihiin marka waxa way xiriirkaasi in aqoon ana leeyahay inaan qofka kale aan ku caawiyo oo sidaas aan wada wadaagno maxay ahayd aqoonta aan leenahay
oo aan wax isku tarno so waa arkay ka hor baan Bergen lagu soo casumay koosh baan u imaaday oo xiriir alla leeyahay already asxaabta kamid ah ku jirta ururka Tusma marka waa waxde oo aad u wanaagsan waayo waxaad helaysaa dad oo dadkaaga ah oo ku fahmaya oo isku dhaqana tihiin oo aad la xiriiri karto oo kula caawin karto marka ha noqoto howlaha dhinaca Soomaalida bismillaahir rahmaanir rahiim magacayga waxa la yiraahdaa Fuad Cabdi Warsame waxaan ka imid magaalada Lillehammer oo laga soo casumay maaragtay kulankan waxaan u celinayaa ururka Tusma oo Tusma Association oo kulan fiican qabtay oo isu keenay maskaxdii iyo miidii dadka Soomaaliyeed ee Norway degan aad iyo aad baan iyaga ugu mahad celinayaa dabcan waxaa soo yimaaday dad badan oo ka kala yimid gobolada kala duwan ee Norway oo miisaanka leh aqoonyahankii waxgaradkii indhadgaradkii arrimaha bulshada ka shaqeynayay maxay iyagu qudhooda kala faa'iidi karaan oo asbaas leedahay niyow cilmiga aan adigu ugu jirin walaalkaaga ku jira qof wax kasta yaqaanana ma jiro hadda waxaan aad ugu mahadsanyihiin Tusma inay isu keeneen intii miidii maskaxdii dadka Soomaalida Norway degan waxay ay ka faa'iidi karaan isbarasho in la isbarto qof walba shaqadu qabanaya la ogaado dabeetana la kala faa'iideysto oo qofka kale wixii uu ku biirin karo uu ku biiriyo iyo in la kala faa'iideeyo maaragtay fikir iyo khibrad in la kala faa'iideysto adiga maqan qofka kale inuu ka faa'iideysto cabdisaaqod maasan tahay shirkan shirarka hore aan ka qayb gali jirnay oo ka duwan yahay laba sabab awgood dadka imaada isugu yimid oo meelo kala duwan ka yimid xilligu soconayo muddo dheer oo dhowr maalmood iyo bar ah iyo mawduuc muhiim ah energy dad ku jiro oo hadda markii aad dadka dhex gashay awleysatid ninkasta xamaasad oo ku yimid iyo fikrada oo hayo ay waaweyn marka waxaan filaynaa inuu shir weyn noqdo dad badan oo Soomaali oo wadanka meelo kala duwan ka degan qof walbana markuu meeshiisa joogo uu shaqo ka hayo dadka uu Soomaalida anfaco ama bulshada kale oo la nool yahay markii aqoontooda la mideeyo markii aragtiyooda la mideeyo lana weydiiyo su'aalo sax ah waxaan filaynaa inay jawaabo sax ah وحلقة عقبادان دحقل naga haysta bulshada Soomaalida inay ka imaadaan maanta maalintii bilowgaha laba maalin baa la fadhin doonaa oo la shiri doonaa laba maalin kadib maalinka xadda baan arki doonaa dareenka dadka soo noqday iyo wax ka soo baxa